روضة حرصي حمود. maalmihiina dhaafay waxaan safar kooban oo qaatay muddo 4 cisho ah uga baxay aniga iyo xubno kale deegaanada hawdka Hargeysa ee dhinaca Itoobiya. safarkan oo daarna wax ka ogaanshaha waayaha dalka iyo dadka waxaan ku soo arkay dhul xiiso iyo xubir badan leh oo igu dambeysay waayo iyo waqti hore. waxaa xusid mudan in mar kaliya dareenkayga xusuustiis bedelay soona bandhigay dharaaro iyo dhacdooyin ku dugna qolka kaydka maanka iyo maskaxda. markii aan indhaha qax ku siiyay ciidii cawskii maadhii iyo maajentii ku taalay banaanada hawdka iyo tuulooyin muddo igu dambeysay raaqda burco goobo dhoobada iyo deegaano kale oo badan. runtii waxa uu ahaa dhul nafta jamatay in ay joogto lana sii ahaato jaal iyo jiiraan muddo iyo maalmo badan. waxba yaan ina sii durkin hilowga iyo xamuunta aan u qabay dhulkaasi aan idinla wadaago xoogo iyo xaajo wixii aan xulay. abaartii dhacday dhawaan ee sanadkii 2017 oo dadka qaar u yaqaanaan sima oo macnaheedu yahay in aanay cidba dhaafin iyadoo sintay dhammaan bulshadii xoolo dhaqatada reer guuraaga ahayd oo dhan isla markaana galaafatay xaalaf cuud iyo ciidan daaq dunyo iyo dal intaba waxay keentay in wadankii uu noqdo mid cidla ah oo la haawanaya dad yaraan iyo dunyo la'aan haysa darteed. dhinac kasta oo aad u socoto waxaa kuu weheliya waaceen ah dhir iyo dhul bannaan burka iyo baadku uu isku baxay bowdada ayaanu ku gaadhayaa. si kasta oo aad u baaladaymo samayso indhahaagu ma arkayaan xoolo xero buuxiya marka laga reebo xayn yar oo xaqlihii lahaa jees la noqday kuna iimaan qaba waxa u soo hadhay. haddaba dhulkii aan dhigay dhudhumada si gaar ah waxaan u soo gudbin doonaa tuulada raqda oo ah tuulo qadiimiya xusuuso badanna i gelisay. waxaan ahay faysal jaamac cabdi. waxaan ka yar hadlaynaa in yar oo haddii la ka dhigo magaalada xuskeeda iyo say soo martay iyo say ahayd hadda say tahay wax waliba way isbedeleen sida adduunyada isu bedelaysaa oo meel walba isu bedelaysa. magaalada raggii aasaasay iyo raggii dhisay guryahaasay ku jiraan. magaalo kale ayaa halkaasa waxa soo hadhay waa wixii ay dhaleen. qarnimada qarniga ka dambeeya ayuu ka sii gudbaa. waxaa la yidhaha naasu liiblu sabaan dadka sabanka ayaa dhale baa la yidhi. walba sabanku siduu yahay ayuu muddo tulaya xagga hamiga iyo xagga waxqabashada iyo xagga tacabka iyo xagga amniga iyo xagga haddii la ka dhigo deeqda iyo waxbixinta iyo xagga camiraadda. qarniba qarni ayuu ka sii liitaa. hadda ayuunbaad moodaa inay magaaladii ugu sii liidan hadday waxbarashada tahay hadday maamulka tahay hadday amniga iyo kala dambeynta tahay hadday isqiimaynta tahay hadday haddii la ka dhigo iska warhaynta tahay maanta ayuunbay ugu liidataa. caalamkana way la wada qabtaa waan filaya. halka ugu sii liidataa waa xagga waxbarashada. waa santar aad iyo aad u ballaaran 7 qabaleyba hoos yimaada. isagiina waa kaa magaaladii hore waa taa wadadii way ka xumaatay wax gawaadhiyo dhex maraa ma jiraan. dhiskina waa xaggaa. halkan aynu joogno guriga 3 guri baa ugu baalleeyay in allaynta kale waa balbalooyin intii dambe qoxoontigii iyo abaarihii la tegey. wadadii santarka dhex maraysana waa taa qaliga. waxay u baahan tahay cid maamusho oo wadadii hagaajisa cadaada oo haddii la ka dhigo waxay u baahan tahay wax sarfey mariya oo waddo ka dhex fuura dhowr waddo oo dhexda mara u sameeya ayay u baahan tahay. marka maamullo uma maqna ciidanna uguma maqna ceelaaliyana uma maqna. raggan unbaa u raga yaryar ayuunbaa u raga waa kolba say ka dhigaan. magaalada arrinkeedu waa caynkaa
waxaan u baahanay haddii la ka dhigo markaa waxqabad weyn waan u baahanay degmadaan uga baahannahay gobolkaan uga baahannahay wiilkaan uga baahannahay cid kasta oo wax qaban karta maalintii labaad waxaanu ku sugannahay tuulada Raqda ee hoos tagta ee kaarka shanaad ee Itoobiya Soomaalida Itoobiya waa deegaan qadiimiya waa deegaan dadkeedu yihiin dad xoolo dhaqataa waxaanay dhaqdaan geela iyo ariga